shirkan jaraa'id ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka degmada Walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay kaga hadleen hadalka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabduqaadir Siidi kaas oo ku saabsanaa dhulalka ay isku hayaan beelaha shanta caleemo iyo sidoo kale beesha Galjaal. odayaasha ayaa sheegay inay ka xumaadeen hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha Siidi isla markaana uu ku noqday hadal aan ay filaynin. odayaasha ayaa sheegay in maalinta Isniinta ay ku balansanaayeen odayaasha dhaqanka beesha Galjaal inay shir isugu wada yimaadaan hase ahaatee hadalka gudoomiyaha Siidi uu noqon karo mid sii fogeeya wada hadaladaasi. haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Walweyn oo la hadlay telefishinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shirkooda jaraa'id waxay kaga codsadeen gudoomiyaha Siidi in arintaasi raaligelin ka bixiyo. shirkun jaraa'id waa in qabado haynee beelaha shanta caleema hadii uu eenno insha Allah war gudoomiyaha gobolka oo shalay taawdeey iyo dabaroogshay in waybuwahe nin mas'uul walaad uski warami maka faylanayni oo usna siba ku nagati waybuwahe in oo usna naftirshay isku qayb qaadado nabad hadda oo gogol liinfidiyo isku qayb qaadado maadaama beelaha un ishaysino oo in naftirsho intiin kooyan walaaliyoogan oo ballangni maalinta asniintu hadda gogol nin taalo reerka gudoomiyaha ka ballangni iyo hadda heshiiskii intii arqaladeeyo iyo usna naftirshay iyo suubiyo haaye waybuwahe nin mas'uul in saasayta makaroon isna naftirshay isku qayb qaado fadaani markii gobolku nin magacaabay in hambaliyoyni daafeed gacan furumaas ka dhawaayeen sidii una naftirkan una qabni usminin qabo maya nabada way ka dheeraayo haaye xugun iyo rido haaye xugun maadaama us rido haaye nabada saasan ku dheeraayo haaye insha Allah makiroonayni wala naasita usaka hadali maadaama hada madaxdii sare oo in naftirshay ku qoommoot insha Allah in oo intii oo laba mid wada hadalka lagu fidiyo oo dib indin madax sare ku ballan qaadaan Koonfur Galbeed maadaama oo in naftirshay oo suku hadali arintaasayta ku xumaati hadii Ilaahay indiidne onan oo Koonfur Galbeed walshay furiyino ballan qaadaan insha Allah hadii Ilaahay indiidne gudoomiye way ku fadaanay warkaasay taw beelaha shanta caleemo in raaligelin aad ku dhiibto dawladda Koonfur Galbeed mahad Ilaaha isku le aad iyo aad ma hadsantaan dadaalkan is suubiyoytaan way lu suunku ballan qaadee beelaha shanta caleemo suunku ballan qaadayaan maamul shoo gudoomiyaha Inkiwiinyo way suunku ballan qaadayaan daafeed in dagaal ku dhiine oo ummadda muslimiinta nin walba soo galo karo beelaha shanta caleemo nabadoonadii oo suunku ballan qaadayaan waa ballan iyo ahadi laakiin warkuun gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyahan una maleeyani waayni suubiyay irbadani suri irbadaasa ku wanaagsan dawladda Koonfur Galbeed ku sugaane gudoomiyahan gobolka Shabeellaha Hoose ku sugaane wabillahi tawfiiq may oladan oo hadda oo gudoomiyaha soo hadii geeg hardabad kaneen oo horta iyadoo ka saadarka kaneen markii geeg baladka kan nabad baladka hergalfani nabad baladka noolaasani marka aragtay insha Allah oo dadkan raaligelin isku biyo marka Abdirsiidi saasar ku hadii raaligelin isku biyo waayo dadka soo afoof in xaqiiqadiis iyo ogaadaan laakiin hadii raaligelin isku biyo oo dhaho warkan oo qardoome ma qiyaasni aan qiyaasni isku hadal soo marka raaligelinta soo nasiyo soo biyo dadka ganay marka hadii raaligelin isku biyo waayo in oo way araga ogaadayaan dadweynaha ama oo sunna ogaadeeyay in oo shirkan kan in soo baajiyay oo sekretary gale oo hadda ku dib oo liskida qof oo marka shaqale mada oo gacmo gaajak imado in Abdirsiidi isku dambooyo may fadaane cadaalad in la sameeyo cadaalad degdeg ee la lamba meelo shalay alnis dulmiin gaajal u dhiiwaakay hatta suuqman kor aragtay goobadan kor alay rum hadii la fadaaw lan aragtay markaata may warsadaas eelay warsadaas eeli warsadaas dhahdaan walka jira ma jiro leeg anili biriwan anili warkaas war jira ma lamba Soomaal huduuda lita hadii alnis dulmiyana dawladda may adayaan arin degdeg ku qabato shanta caleemo sidii liin sheegi dad mas'uuliyiin Koonfur Galbeed iyo sil hadaleen gudoomiyaha sil hadaleen nin kooy wali hata in raaligelin oo la dhiibay hadalka hooyeen in dhihi onon go'aan way darnay maadaama oo jawaabta on kanagana Koonfur Galbeed mas'uuliyadiisa raaligelintii ku qaadin maadaama ku danqadeen nin mas'uul ay saas an hadale caalamka ku dhiine sidii dhul jeex amal ama gudoomiye dhul qaybiyo amal oo an hadale ala ihal hadda xaaladii sidii ba ka degne raaligelin ina usu ku dhiibay iyo ku fidhiin wabillahi tawfiiq
dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed dadkan walaalaha oo shirka qabad lahaayeen oo ballameen oo wada ballameen isniinta in shirka la qabado oo leen baahnay iyo dabka shidoohay odayaalka shanta caleemood raadlama ku naqdaan shirkana mabaaqadaa shirkana furinya taasaas in sheegaan insha Allah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdiqani maxamed xasan raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.